ayaa iyada oo ka faa'iideysanaysa khilaafka siyaasadeed ee iminka u dhaxeeya madaxda maamulka Puntland waxa ay ciidamadeeda kala duwan u baabushay deegaanada lagu muransan yahay ee gobolada Sool iyo Sanaag. Saacadihii la soo dhaafay deegaanka Tukarraq oo ay gacanta ku hayaan ciidanka Somaliland waxaa soo gaaray dabaabaadka dagaalka iyo ciidamo aad u fara badan oo ka soo ruqaansaday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. ciidankan oo watay tiknika fara badan iyo kaarayaasha dagaalka ay horay Somaliland u soo bandhigtay ayaa ka gudbay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool iyaga oo sidoo kale isku ballaariyay deegaano kale oo labada dhinac ay muddooyinkanba isku horfadhiyeen isla markaana laga cabsi qabo in uu qarxo dagaalka foolka-foola oo u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. madaxda xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa maalmihii dambe si qoto dheer kaga hadlayay xiisada Garowe ka taagan ee u dhaxaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kaash halkaasi oo ay labada mas'uul isku qoomeen mas'uuliyiin xilal laga qaaday iyo kuwa loo magacaabay. hase yeeshee Somaliland iyo Puntland oo aan muddo isku fiicnayn ayaa iminka waxaa muuqatay in xukuumadda Hargeysa ay jaanis weyn u aragto isku maqnaanshiyaha Puntland lagana yaabo in Somaliland ay deegaano badan oo ay horay u baadigoobaysay qabsato inta uu taagan yahay khilaafkan ka aloosan magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. dadka ku nool deegaanada ay xiisadu ka soo cusboonaatay ee gobolada Sool iyo Sanaag ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan dagaal ka dhaca halkaasi oo u dhaxeeya ciidamada Somaliland ee ka soo ruqaansaday dhinaca magaalada Hargeysa iyo deegaanadii hore ee ay joogeen iyo ciidanka Puntland ee halka ku sugan. Puntland ayaa dhowr jeer ku goodisay in ay soo ceshan doonto guud ahaan labada gobol ee kala ah Sool iyo Sanaag oo ay dhanka kalena Somaliland ka sheeganayso. hase yeeshee ciidanka Somaliland ayaa la wareegay deegaano muhiim ah oo uu ka mid yahay deegaanka Tukarraq oo ay iminka joogaan ciidamada Somaliland. dhaqdhaqaaqa cusub ayaa laga yaabaa in uu horseedo isku dhac halkaasi ka dhaca iyada oo sidoo kale ay jirto taageero ay xukuumadda Somaliland ka helayso waxgaradka iyo shacabka deegaanadaasi oo aan iyagu la dhacsanayn qaabka uu iminka u shaqeynayo maamulka Puntland. tan iyo markii uu soo cusboonaaday khilaafka madaxweyne Dani iyo ku-xigeenkiisa Kaash waxgaradka gobolada Sool iyo Sanaag ayaa ku goodinayay in ay isaga baxayaan gebi ahaanba maamulka Puntland oo ay aayahooda ka tashanayaan. waxaana iminka ay sheegayaan siyaasiyiintu in Somaliland oo fursadaasi u aragtay jaanis weyn ay soo dhawaysanayso dadka ku nool deegaanadaasi